Hello qaali muuqaalka waxaan kugu tusi doonaa qaabka aad u geliso account-kaaga admin-ka ah ee aad isticmaalayso hadhow. Marka ugu horeyn Google Chrome-ka waad la soo degaysaa. Markaad la soo degto halkan baad keensanaysaa intaad saa u soo qaado saa u soo jiido intaad select garaysaa u soo jiido ayaad halkan dhiganaysaa. Markaad halkan saa u soo dhigato waad soo furanaysaa isagii. Markaad saa u soo furato taabato kadibna marka bin baa la yiraahdaa. Waxaan horta ku yara fahansiiyo right click baa la siiyaa kadibna bin baa halkaa la yiraahdaa. Marka bin haddana yiraahdaa imika meesha uu ka qaadmayaayo hadhow markaan ka baxa meeshii ma oolayo. marka tanna bin baa la yiraahdaa bin taasa bin task bar baa leedahay. marka task barkan uu ku yaalaya kama baxayo. marka imika kaasi uu yaalka imika application kaasi ma furna laakiin halkan uu yaala maxaan sameeyay halkan baan bin gareeyay haddaan bin yiraahdo ka kacaya meesha. marka bin buu kan ku yahay markaad soo furato Google Chrome-kaaga kadib waxaad tagaysaa caalin.com markaad timaado xariijin baad qoraysaa aan keyboard-kaaga la soo baxo xariijinta yar baad qoraysaa aan qoray xariijinta waa tan saad arkayso wp/admin baad qoraysaa. markaad intaa qorto enter baad siinaysaa kadib adminka account-kiiba ku geynaya halkii laga geliyay. marka intaasaad ku gelaysaa admin-kaaga waa caalin.com xariijin wp/admin. marka intaasaad ku gelaysaa account-kaaga admin-ka ah ee aad ka gelayso. marka username-kaagu muxuu yahay haddaba oo kay keenay meeshii admin-ka laga geliyay Samira1 weeyaan. Samira1 halkaa markaad ku qorto password-kana ana kugu soo diraya meel kale waayo video-ga kaagama sheegayo si aan lagu dhicin. marka password-kan kadibna gelinaya password-kaagii ma gelinaya kadibna marka enter baan leeyahay. marka enter markaad tiraahdo account-kaagii baad toos u geli doontaa intaa kadib insha Allah. marka waad yara sugaysaa intuu kuu geliyo account-kaaga oo kaa wareegaya saad halkaa ku arkayso. marka halkan uu ina keenay haddaba ardaydii halkee looga sii deynayaaba haddaba meeshii noo taala ardaydii halkee laga diiwaan gelinayaaba meeshii noo taala. marka hoos baad soo wadaysaa kadib halkaa waxaad ku arkaysaa useries baad ku arkaysaa. useries marka aad taabato page-kan yar ee kale kasoo agboodaya halkaa add new baa ku taala waa halkaad kaga darayso qofka cusub add new user ama all useries haddaad taabato all useries baan taabanayaa ilaa ka all useries markaad taabato qalila yaree marka all useries saad arkayso internet-kaaga yara culus sorry marka all useries marka aad taabato marka all useries marka aan taabtay all useries mar walba waa halkaa taala hoos baad soo yara wadaysaa kadibna halkaas ay ku taala useries. marka all useries marka aad taabato halkaa yar ee sare waxaad ku arkaysaa add new baa ku taala waa qof cusub diiwaangeli macnaheedu add new person weyn waa qof arday cusub baa diiwaangelinaysa ama qof cusub. markaad saa u soo u taabatay add new sorry network-kaaga yara culus iska dul qaado intaa. marka add new markaan taabtay boggan yar baa soo baxay. marka halkaa waxaad ku qoraysaa username-kii. marka tusaale ahaan c baad qaadatay adigu saad ogeyd marka weliba cda anaa wax ku diiwaangeliyay beri hore. marka waxaad qaadanaysaa set oo kale aad qaadan kartaa waxaad qaadan kartaa oo kale e baad qaadan kartaa tusaale ahaan 1e baad qaadatay 1e markaad qaadatay kadib halkan waxa kuu soo baxaysa email-kii geli. marka email-kii markaad gelinayso 1e waxaad gelinaysaa @caalin.com marka caalin.com @caalin.com marka username-ka password-ka email-ka saasaad u gelinaysaa 1e@caalin.com kadibna magacii baad gelinaysaa. magacii tusaale ahaan waxaad qoraysaa maxamed oo kale mohamed last name-kiisana ali oo kale ka soo qaad inaad gelinayso. password-kii haddaba halkan uu ku yaala password-kii haddaba waxaasaa kuu soo baxaya marka aad taabato kadib waxaan waad ka masaxaysaa waad ka wada masaxaysaa kadib maxaad ku qoraysaa oo kale ali baad gelinaysaa oo kale 1 2 3
ali 1 2 3 kadibna halka ma aragtaa wuxuu ku leeyahay confirm passwordka waa weak buu ku leeyahay waa daciif buu yahay markuu daciifka yahay xaqiiqi buu ka oranayaa passwordkan maad rabtaa inaad isticmaasho waa daciife marka waa caadi marka isagoo daciifkaas rabaa inaad isticmaalaad leedahay haduu waxa ku soo saaro marka waxaas wax dhib lama aha wax kala hamoodin kadib halka yar baad saxaysaa kadib wuu ku ogolaanayaa inaad isticmaasho marka gebigaba intaas aynu buuxinayna halka website-ka waxba kuma qoraysid waa labada first name iyo last name qofka magaciisa hore iyo magaciisa dambe kanina waxa weeyaan waa emailkana waa maxay waxa weeyaan waa ID-gii aynu siin jirnay ardayda username-kii ku geli jireen iyo email iyo loo raaciyay @alin.com bad gelinaysaa kadibna marka waa intaas halkan marka wax kale maaha kadib inta marka dhamayso halkan waa role halkan taaban mays halka inaga ilaali xabib marka inay fasaatiraho haddaad admin ka dhigto qofkii waxaad ka dhigtay in website-ka leeyahay marka student baad halka ku deynaysaa marka isma bedesho marka mar walba meesheedaasay sax ku tahay haba soo furino wax kala ka dhigin haddaad imika admin ka dhigto qofkii wuxuu noqonayaa qof website-ka admin ka hoos kale wuxuu doono ka sameyn kara oo koorsooyinkiisa ka dhigan kara wuxuu doono ka sameyn kara oo delete gareyn kara hadduu doono wuxuu doono marka markasta student waa in halkaas ku ahaataa marka sideeda caadiga ah ee tooska studentigaasi ahaanaysaa marka ina gacanta kaaga dhacdo baad iska ilaalinaysaa marka bedeli ma maysid halka sidaas ma ahaanaysaa halkaas student bay ahaanaysaaba adoo haddaad bedelin ma ahaanaysid si tahay ku daa marka diiwaan gelinayso qofkaad buuxisid formkiisii sidiisaas aad ku deynaysaa kadibna add user baad oranaysaa add new baad leedahay add new marka tira user kadib uu isdiiwaan gelinaya maxaad ku ogaanaysaa inuu isdiiwaan geliyo halkaas uu soo dhigaya notification yar oo akhtara kadib saad arkayso halka wuxuu dhigay new user created buu ku yiri halkaas aad ku ogaanaysaa inaad qof diiwaan gelisay waayo halka yar buu qoraal yar oo akhtara soo dhigay saad arkayso qoraalka yar akhtarkii wuxuu ku leeyahay new user created buu ku yiri already waad samaysay qofka user name-ka waad samaysay buu ku leeyahay marka waxaan waliba ku sii tusayaa waliba haddii aad rabto qofka passwordkiisa haddaad rabto inaad bedesho wax ka bedel ku samayso user name-kaada edit garayso si aad u edit garayn lahayd marka halkaad ka search garaynaysaa waxaad imanaysaa ugu horeyn all users baad imanaysaa halkii ku taalay markii hore joognay waa markii hore halkan ay taagnayn weeyaan marka all users marka tiraado halka waxa laga search gareeyaa userada ama dadkii diiwaan gelisay haday noqdaan kuwayga iyo haday kuwaaga noqdaanba marka 1e buu ahaa qofkii diiwaan gelisay markii dhaweyd 1e baad inta oranaysaa waad search garaynaysaa weeyaan macnaheedu qofkii baad rabtaa inaad bedesho يعني passwordkiisii oo aad edit garayso macluumaadkaad gelisay markii hore marka edit baad leedahay halka yar ku taalo delete oran mays halka yar edit ay ku taalaad mouse-ka taabsinaysa fartu ku fiiqsantay edit marka aad taabato kadib bog cusub baa ku soo furmaya bogga cusub marka uu ku soo furmo waxa weeyaan macnaheedu waxay buuxinayba halkan ku arkaysaa marka intaas sare iska dhaaf intaas sare waxba ka taaban maysid kaliya halkan hoosaad imanaysaa meel kala adoon taaban halkan wuxuu ku leeyahay username ma bedeli kartaa hadaad mar qorto marka waa mamnuuc in la bedelo wuxuu ku leeyahay cannot be changed marka waa sida caadiga ah lama bedeli karo waa sida sharciyan taa marka kaliya waxaad bedeli kartaa magaca hore iyo magaca dambe iyo nickname-ka oo bedeli karto isaga macna male marka kaliya badana waxay dadku ka soo cawdaan waa email-kana waa intaas aad ku diraysaa markasta @alin.com ma raacinaysaa ID-ga iyo @alin.com baad halka dambe kaga daraysaa marka @alin.com kani markasta way la soconaysaa 1e-dan bas bedelaysaa inta dambe mar walba iskala soconaysaa marka inta markaad fahanto halka generate baad taabanaysaa hadaad rabto qofka passwordkiisa inaad bedesho hore ugu jiray marka kiisii hore ma arkayno laakiinse weyn bedeli karnaa oo mid cusub weyn gelin karnaa marka generate markaad taabato passwordkii baad bedeli kartaa hadaba maxaad ku qori kartaa samiiraad ku qori kartaa 11 Samira 11 baad ka dhigi kartaa ama Samira kaliya ka dhigi kartaa Samira kaliya ba ka dhig kadibna wuxuu ku leeyahay waa week hadduu week ku dhaao confirm baad leedahay halka ay ku taalo haddii uu adeegay passwordkaaga waxa kuma soo saaraya weekna marka waa inta waad samaysay waan arkaa waa passwordku in bedelnay hadda saad arkayso Samira inuu ka dhignay marka update baad leedahay imika tusaalahan update marka tiraado halkan yar sare wuxuu iska soo qorayaa updated buu ku oranayaa updated sidii markii hore new user registered uu ku lahaa ayuu haddana ku oranayaa new user updated buu ku oranayaa account updated waxbaynu ka bedelnay macnaheedu weeyaan updatedna
marka best maadaama in passwordki bedelnay hore ugu jiray meesha marka updated buu koranaya marka network-kayga yara culus sorry network-kayga yara culus internet-kayga yara culus caawo ciladaysan marka ay dul qaado marka halka waa ka ku qoran user updated buu kuli marka updated macnaheedu waxa weeye waxbaad ka bedeshay account-ka wad uu ku fulay wax ka bedelkaad sameeysay uu ku fulay weeyaan macnaheedu marka inta wad fahantay ma filaya marka inta wad fahantay kaliya waxa ku hadhay inaan ku tuso qaabkaad ardayga u diiwaan gelinayso aad ugu darayso kooraska markaad rabto inaad ku darto marka boggaasi waa boggaad ka diiwaan gelinayso noqonaya halkaas ku oolaya boggani marka kaliya waxaad halkan hadaba soo furanaysaa caalin.com kalaad gelaysaa caalin.com baad halkan ka gelaysaa hadana kadib halkan baad keensanaysaa waad isku soo dhawaysanaysaa si aad mar kasta hawlahaaga halkan uga wadato insha Allah markaas aad arkayso sawirkaaga admin-ka kugu jira halka Samira waa admin saacada laga bilaabo marka account-kaaga waad ku jirtaa hadda saad arkayso marka halkan imika waxaan oo koorasa admin baad ka tahay marka imika tusaale ahaan qofkii wuxuu rabaa in macdinta loo sii daayo ama macdinta in loo sii daayo tusaale ahaan qofkii imika in diiwaan gelina rabnaa inaan u sii deyno tusaale ahaan English-kana rabnaa inaan u sii deyno oo kale English-kii baad taabsanaysaa waxaan rabnaa inaan sii deyno Soomaa marka boggana ku soo baxaya boggani marka uu ku soo baxo halkan waxaad ku arkaysaa menu marka menu-ga markaad ku aragto halka admin ay ku taala taabanaysaa admin meesha ku taalo admin ayaa taabanaysaa halka ay ku taalo si aad ardayga u diiwaan geliso ugu darto account aad ugu darto kooraska ardayga si aad kooraska ugu darto meesha admin ku taala taabanaysaa admin marka taabato boggana ku soo boodaya markaad bogga timaado kadib markaad admin taabato ardaydiiba halkan kaaga soo baxaysa marka ardaydii markay halkan kaaga soo baxdo saddex waxbaad halkan ku aragtaa halka waxaad ku aragtaa change course extend subscription add new student halkan waxaad ku arkaysaa student add student baad ku arkaysaa course marka dadka labada qof ee meesha yaala ayaa taabsanaysaa halka add student ay ku taalo marka labada qof markaad select garayso kadib halkan waxaad ku qoraysaa qofkii aad diiwaan gelisay username-kiisi marka username-kiisi wuxuu ahaa username-ki qofkii diiwaan gelin 1e buu ahaa 1e marka 1e kuma soo baxayo qofkii afar xaraf ilaa qorto kuma soo baxayo marka waxaad gelinaysaa caalin oo ahaa wixii la socday caalin marka 1e caalin marka aad qorto magaciiba Maxamed Ali baa ku soo baxay waa magacaynu ku qornay markii ardayga marka waa dooranaysaa ardaygii kadib waxaad leedahay add student baad leedahay haddii arday kalena aad gelinayso user kale gelinayso oo kale tusaale ahaan 1b baad gelinaysaa tusaale ahaan 120b waa dadkeygii weyn 120d waa dadkeen diiwaan geliyaanu marka 120d markaad qorto markaba waxa ku soo baxay qofkii 120d lahaa kadib waa Maxamed Carabi weeyaan waa diiwaan gelinaysaa oo kale marka add marka taabato kadib halkan aad taabanaysaa add student marka 120d ga ma rabo inaan diiwaan geliyo marka kan tijaabo uu nooga dhigayaa marka add baad taabanaysaa kadib add marka taabato already added buu koranaya halka student successfully added buu koranaya isla markaba marka maxaad ku ogaanaysaa inaad ku gashay hadii ay uu shaki ka galo marka haduu shaki ka galo markaba halkaas aad ogaanaysaa magaciisa baa ku soo baxay ID-giisa ma arkisid magaciisa baad arkaysaa hadii aad ka shakido istiraamala qof aan hadii aad rabto inaad ka noqoto ku daristaad ku dartay halka egastaas taabanaysaa egastaa marka taabato su'aashan ku weydiinaya waa markaad rabto inaad ka saarto ardayga meesha course ku jira marka su'aashaasi ku weydiinaya confirm user from course marka ogolow inaad ka saarto xaqiiqi buu ku leeyahay inaad ka saarto ardaygan course-ka marka confirm baad leedahay ka baxaya marka sadarkiisa uu ka baxay meeshii marka halkan oo kale ardayda marka tusaale ahaan ardaybaad rabtaa inaad eegtid dhaqdhaqaaqiisa ardaynimo marka halkan oo kale waxaad ku qori kartaa imka hadda waad fahantay qaabkii loogu daray course-ka ardayga marka waxa ku hadhay inuu ku yara fahansiiyo imka tusaale ahaan ardaybaad rabtaa dhaqdhaqaaqiisa inaad ogaato imka ardaydan waa kuwa kamid ah ardayda dhigata course-kan English-ka marka arday kamid ah ardayda saar rabtaa inaad eegto dhaqdhaqaaqiisa marka tusaale ahaan waxaad gelinaysaa 1D oo kale
1D baad gelinaysaa ardayga ID gaasta halkaasi waa searching halkaad ka baadhaysa weyn 1D weliba caalinna raac intaasi uu inoogu kala qaybiyo marka tusaale ahaan ardayda ka mid ah aanay soo cawday wuxuu yidhi waxaa ma dhigto marka ID-giisi baad gelinaysaa oo dhammaystiran marka @caalin.com aan raaciyo weliba @caalin.com marka inaanu ardaygaasi Englishka dhigan baa laga yaabaa ID-gaasi tusaale uma soo qaatay marka halkan aad taabanaysaa marka ardaygaasi ma dhigtaa laga yaabaa marka arday dhigta course-kan baan eegaya 120 tusaale ahaan 112D tusaale arday dhigta raadinaya si aan dhaqdhaqaaqiisa u ogaado marka ardaygaas oo kale weeyaan Shukri Maxamed baa ID-ga sidata marka dhaqdhaqaaqeeda rabaa Shukri Maxamed baa soo baxday inaan ogaado marka dhaqdhaqaaqeeda halkaasan taabanaya markaan ogaanayo halka hadda taabato xabib iska ilaali ardaygii wixii uu course soo dhigtay casharadii wixii oo dhan baa is receipt gareynaya oo wixii oo dhan way ismasaxayaan oo uu soo bilaabay ardaygii wixii oo dhan casharadii u furmo dhan iyo wixii way wada bilaabayaan marka be careful marka tiiba taabanaysa tana taabanaysa tani waa maxay waa dhaqdhaqaaqii iyo casharadu dhigtay halku marayo inaad ogaato ardaygii marka taa hadda taabato ardaygu halku maraya inoo soo baxaysa marka taasad mar walba taabanaysa mar walba iska hubi marka taasaa taabanaysaa marka dhaqdhaqaaqii ardayga ku soo baxayo ogaanaysaa marka saad aragta ardaydani 3 cashay joogtay oo ay nolol dhiganaysay halka inta wiigu dhiganayay xiisadaha ayaad arkaysaa tirideeda marka imisa cashar bay dhigatay 2 lesson bay dhigatay marka waad aragtaa waa ardayd shaqeynaysa marka waad ila fahantaan filaya marka gebigaba koorsada kalena saasoo kulun baad ugu daraysaa waba inta wixii kale soo weydiisay hadhowna waan kaaga soo jawaabayaan ku fahansiin insha Allah waynu wada joognaa marka already waa inta marka course kalena markaad ku darayso exactly halka hadda taabato waa home ama halkan la macno taayado taabtay home kii ku keenaya marka home kii wiina keenaya wixii oo dhan way ka soo baxnay ardaygii markay ku darno marka halkan oo kale waxay ka mid tahay waa koorsooyinka kalena sidan u baa u taabanaysaa exactly sidan u baad ugu dhufanaysaa sidii oo kale baad u galaysaa oo ugu daraysaa ardayda marka already waad fahantaan filaya intaana wixii kale su'aalaad soo weydiinaysaa hadhow waan kaaga soo jawaabay insha Allah aad iyo aad baad mahadsantahay xabiibi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawasho wacan